abwan caba waxaan ku weydiinayaa muddo badan bad jacayl ku soo dhex jirtay adigana wuu kugu dhacaa sida nagu maqaaladaan ku hayno warka abwan waxaan ku weydiinayaa qofka jacaylku markuu ku dhaco ama bahalka jacaylka dhaamo ku dareemo horta bil jacaylku wuxuu yahay noo sheegmo qofba ma neefba ma riya muxuu ku yimaadaa mar labaadka jacaylku qofku markuu dareemo ma wax isaga ka muuqan kara mise isagu waa wuxuu wato oo jacaylka ba muuqda mise qofka sayfta miska ku dhacay sida xanuunku sayfta miska u leeyahay ayaa qofka ka muuqda haddaan isku dayo su'aasha wataniyow jacaylka kulli waxaan malaynayaa qeexitaankiisa qof waxba ku qeexaaya dad waaweyn baa meesha fadhiyo wada qaangaadha markaa kulli qof kasta waxbuu yaqaanaa jacaylkuna qof kasta isagu wuxuu yaqaano laakiin sida guud jacaylkan aynu dee kulli kan aad weydiisayna kulli ka dadkuna dhageystaan ay xiisaynayaan oo jacayl marka hore khiyaaliya way jirtay inuu kulli dad badan oo meeshan fadhiya ku dhacay laakiin jacaylkaasi waa khiyaali inuu khiyaali yahay jacaylka guurka ka horeeya badidiisu sababtoo waxaa jira labada qof sida dhaba nolosha u qaybsada sida dhaba ka isu jecel ee isqaba way kala tagaan oo way isqabtaan oo labada qof ilaa heer ay dee hawshooda kala dhammaystaan baa dhacda laakiin jacaylka khiyaaliga ma dhammaado jacaylka khiyaaliga qof haddaad jeclaato 6 sanaad iska jeclaanaysaa 20 sanaad jeclaanaysaa haddaad doonto weligaa u sheegan maysid marka waa khiyaaliguna wax dhammaada maaha laakiin runtu waa jacaylka dambena uu dhammaadaa calaamadahaasna hada qof waasi hadduu qofku israaciyo way ka muuqanaysaa laakiin adigoo wax jecel waa istiili kartaa laakiin mar walba qofku ma istiili karo qofku jeclaa markuu hortaagan yahay laakiin aanu jacaylka hore oo dhan khiyaali ma saga haystaa laakiin kulley dee wax ka soo wada aragna shacayb su'aasha ku weydiinaya waxay tahay in badan buu shaclaawi ka hadlayay dareenka jacaylka iyo sheekooyinka waxaan oran karaa maadaama aad guri wada joogtaan oo qol wada seexataan fayrisku uu gudbaabaa iyo kale adiga badhbu kaa soo gaaraya marka lamaana ma leedaha ama ma ku jirtaa jawi xiriir ma ku jirtaa su'aasha shaclaawi mid kaada bad weydiisay horta ilaahay bay sukeen abuuray markaynu nahay lab iyo dhadig sama qof walbaaba lamaana u baahan yahay lamaanaha markaa horta inuu xalaal noqdo ayuu ku qurux badan yahay aniga shacayb ahaan horta waxaan aaminsanahay waxa jacaylka la yidhahdo waan aaminsanahay jacaylka waan aaminsanahay laakiin waxa datingka la yidhahdo ama wada sheekaysiga waayada ka mid ah aaminsanaan jiray qofku marba marxalad buu sugayay sama hadda wax shay laga dating ama wada sheekaysi ama waa ka haasaawe iyo waxa runtii ma aaminsani kumana dhaqmo hal su'aal baan ku weydiinayaa halkaas su'aal dhinaca waxay ka wadataa maan sida hadda akhriyiisi dhinacna adiga ahaan bay ka wadataa shacraawiyow nafsi weligaa ma kugu dhacayse ma gasha taasi waa mid su'aasha hoostaalana waxa weeye haddii aabad gashay lacalla caawa maxaad fariina ee dhambaale kan aad uga dari lahayd qofkaad nafsiga ugu weyn noloshaada aad ka gashay أنا أقول في الآذان النفس كما قلنا النفس قال له إنه عمرنا ومرة قف كجشوا نفسي قمر واحد نفسي حاول كده بس وما له تلاذا نفسي واحد نقول كرا ممكن يكون كلام برنامج كان مركي عن سوق بقابلني أديكو أنت هل كان ناس كقوان لها أنت ممكن كلا هاس الدينو أنا رأيك هو يرد دقيقة يتقنا لأن لو تلو حساب حكاه هذا كسبه النفس لكن أتوقف أنا أقول لي نفسي كما قال ينقف أنا قال نفسي قالوا بدل ويانا مسكين بنا ولي حاجة حولها أنا ذاك ولي جاي واحد ملايين إن قلبي كما يعني ولا عاوز فينا وقحر سنة إلا إن قلبي كما يعني قفنا أنا أقول أنا ملايين عاوز يدي كتير سنة قارن أنا أقول كتير سنة يعني مثلاً إنتي أنا نقول سؤال ويدين إنتي عيا اسكت يسوع شعيب سؤال ويدين يسأل أو قبض فلنا. فنان كيا ولكن شعيب محمود وحاول يدينا يا سؤال أنا بدنا نشعل الفيديو وحاول معنيه وقت شعيبه مرة هسها وانا كا مركب ويدينا يا
heer intee leeg ayaad jeceshahay inaad ka gaadhid fanka se ma jeceshahay inaad qaybahaaga fanka wax badan kusoo kordhisid walaal aad baad mahadsantay walaal nimco nat magaceeda inoo sheegin anaa idin sheegaya nimco axmed aad baan ku salaamayaa horta su-aasha ah fanka ilaa heerkeebaad jeceshahay inaad ka gaadho wallaahi haddaan soo koobo fanka waxaan jeclay inaan ka gaadho horta fankii baa kala labaa anu fan gaaraan wataaba fan dee waa kii musiga lahaa musigo noocuu doonaba ah dadka imika musiga xitaa dadkeena ma kala fahmaan qaar baa kugu imanaya oo ka odhanaya gitaar ma kuu tunnaa marka gitaar waa kagu sii daranba ama cuud iyo piano organ wuxuuba waa isku mid horta anigu music kuma heeso marka dee raggii musiga ku heesi jiray iyagu heer bay ka gaadheen rag badan oo dee aad wada garanaysaan maxamed salmaan tibaac oo kale cumar dhuulla cali xasan aadan samatar ragga noocaasa fanaaniinteennan dambena fanaaniin waaweyn bay leeyihin marka fanaaniintaa dee rag baa iga fara dhuudhuuban oo iga horreeyey oon dee iminkana kala wadana ku jirnaba marka ragga aad baan ugu bogaadinayaa fanka heerkay ka gaadheen iyagaa fankana baray laakiin anigu fankaygu uu ka duwan yahay kooda waxaa weeye fan bilaa musiga marka fankayga waxaan jeclahay in heer sare ka gaadho heerkaas sare oo ah horta dee fanaankii ugu horreeyey ee soomaaliyeed baan jeclahay inaan noqon doono ee bilaa music ku heesa fanaaniinta musiga ku heesta bilaa music way ku heesaan laakiin bilaa music badax tiran ama dee aan music ku jirin oo khaasa waxaan u malaynaya inaan noqon doono fanaankii koowaad ee ku heesay marka inaan dad aan role model u noqdo oo jiil dambe igu daydaan oo iga dambeeya oo aan u horseedo fanka xalaasha ee bilaa musiga ayaan jeclay inaan ka gaadho horta fanka the second su-aashii labaad fanka maxaad kusoo kordhin lahayd bay igu tiri fanka si guud bay iyada u taabatay fanka waxaan jeclahay inaan kusoo kordhiyey dee kaa bilaa musiga ah ayaan jeclahay fanka kaasaan kusoo kordhiyey waan jeclahay inay dad dambena igaga daydaan oo ay waddadaas soo qaadaan waxyaalo badan oo kale oo cusubna insha allahu waan kusoo kordhinayaa